Yalla fursadno وبناتي ليعي وقاسو بالعنيد بالشر وبالغير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول الملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. لن يروا kolka laga soo bilaabo 1991 wax badan oo fara badan baa qaldamay, wax badan ayaa dhacay oo kol walba in hadii la yiraahdo waxaas baa dhacay, keer baa dhacday, kan baa dhacay, kooxaa dhacay, sidaasaa dhacday, wax la soo koobi karaa maaha. balse waxaa habboon in la yiraahdo bal wixii oo dhan guud ahaan sideen u xallinaa oo maanta ugu gudubnaa oo beritoole aan ku naaloonnaa waayo wanaagsan iyo waqti wanaagsan. waayahay Soomaaliya 1990 cid aan isgaarin ma jirto oo aan dagaalamin. waa qabiil baa la isku laayay, qabyaalad yani waxa heerkii waxay ugu dambeeyay bay gaartay. dowlad baan helay ku meel gaar ah, alxamdulillah in yar waa yara dhaannay. dowlad kale aa timid oo aan ku meel gaar aan ahayn, ku meel gaaradii haddana waan dhaannaa, waan ka wanaagsanaanay. laakiin waxbaa jira, nabarkii weli wuu jiraa. waayo shalay kuwii qabiilka isku dagaalay oo labada qabiil islaynaysa ahaa baa maanta hal maaragtay golihii wasaaradda ku wada jira ama golihii baarlamaanka ku wada jira. haddaba dhibaatada taalle maxay tahay? nin qabiil oo qabiil kale ku xumaynayo ayaa qarannimadii u gelaysaa, maxaa la yidhaahdaa, loo wiiqayaa qarannimadeennii. yani ra'yi baa la keenayaa baarlamaankii, maalan nin baa ra'yi keenaya, arrimaa laga hadlaya, waxaasi ma jiraan ayuu leeyahay, isagoo aan eegin, aan dhegaysanin ra'yigaasi wanaagsan. wuxuu ku diidayaa keliya hebel oo reer hebel ka soo jeeda oo shalay aan islaynay ahaan ayuu maaragtay wixii qaranka ku hagaagi lahaa, ku dhismi lahaa oo maaragtay ra'yigiisi ku lidinaya oo lid ku noqonaya. si looga gudbo arrimahaasi, xalkii daawadii nabarkan intan ina haysata wuxuu ahaa in la sameeyo dib u heshiisiin dhab ah, in la sameeyo oo Soomaali ay isku timaado. Soomaali kolkay isku timaado oo qabiil walba qabiilka kale xataa iska daaya qabiilada qaarkood dhexdooda ayaaba isdagaalay, islaayay, wax kale iska daa. yani heerka la gaaray, jaahilnimada heerka la gaaray waa heerkii ugu dambeysay. waa sababaha oo shisheeyaha inooga faa'iidaystay oo lug ugu lahaaday dalkeenna. waxaad arkaysaa golihii baarlamaanka ku jira, waxaa weeyaan safaaradaha ayaa looga yeeraa, safaarad ka mid a ayaa looga yeeraa, ama isaga ama iyagoo kooxa toddobaadkiiba mar inay tagaan ay ku shiraan. oo yani maxaa dhibaatadaas keenay? waxa weeyaan qabaa'ilkii, yani qabyaaladii baa dhashay. hebel oo hebel ah oo reer hebel ah ayaaba madax idin ahaa la yiri, laga raariday. sidee buu markaa idin xukumaa? oo yani safaaraddaas ay tegayaan waddankii kolkii hore ay ka yimideen ee dhalashadiisii soo qaateen ahaan bay ugu tagaan. waxaa u tageene waxay u tagaan waxaan loo joogin siyaasaddii dalka ayaaba lagu falanqeeyaa safaaradaha qaarkood. yaa falanqeynaya? kii siyaasadda waday hogaaminaya, ama sharci sameeyihii ahaa ama sharci fulihii ahaa ayaaba maaragtay ajaanibkii la xidhiidha. ama dowlad hebel baa wadata, ama dowlad magaxee keer baa ay wadata, hebel baa doorasho galaayo, dowlad hebel baa wadata. warma dowladaha ku baratamaya oo shisheeye dalkeena yani doorashada kaga qayb galaya, mise innaga ayaa doorashada kaga qayb galayna dalkii soo u dhalanay dalkii? ka soo tag halkan dib u heshiisiinta ah. adduunka wax badan baa ku hagaagay. ruwaanda kolka aan soo qaadano, maati baa la xasuuqay, wax kale iska daa. innaga maatida waaba ka xishoon jirnay Soomaalida, waana ka xishoonaa ilaa iminkana. oo birmageysan nidhaanaa, oo birmageytada
يعني dadka aan birta yani aanba dagaalka aanan qabanin ayay ka mid yihiin xataa haddii qoladii lala dagaalamayay laga adkaado oo gudaha loo galo maati lama taaban karo odayaasha oday dhaqameed lama taabto macallimiinta dugsiyada lama taabto yani waxaa la yidhaha birimageysa la yidhaahdaa dadkaasi halka laakiin Rwanda walaa birimageysa iska daaya mid yani uur hooyadiis ku jira ayaa lagu dhex dooxay wax kale iska daa heerkaas ay gaareen maantana way ka heshiiyeen oo way isku yimideen maxaa inaga inoo diida inagoo islaam ah oo muslim ah maxaa inoo diida inaynu isku nimaano oo aan heshiino oo dalkeena inoo hormaro maanta dalalka Afrika dalalka ugu horumarsan ayay ku jirtaa Rwanda miyaynaan arkayn annaga ma aragna miyaa waxaa ka socda Rwanda ka socda annaga ma aragno iyo qaabkii ahaan jirtay ma xusuusano iyo sidaa ee iminka tahay ma aragno aan baraarugna aqoontii waa inay baraarugtaa dhibaatada waxa weeye aqoontii ayaana baraarugsanayn aqoontii waa inay baraarugtaa aqoon-yahanow baraarugo u istaag dalkan oo dalkan ha hormaro horumarkiisii ma ahan keenaan samaynaynaa aasaaska aan ka bilowno dib u heshiisiin aan samayno horta kolka hore dad heshiis ah ayaa wax wada jiidi kara oo meel gaarsiin kara inagoona heshiis ahayn oo cid walba urtuntii shalay qaba xumaantii shalay yani uurkiisii ku taalla ayuu maaragtay soo hor fadhiisanaya ilkaha unbaa waa la isku dhowlo caddaynaya waa been dhowlo caddayn been ah weeyaan reer hebel soo ma aha warkiis kuma jirin reer war soomaalinimadii ha midoodo soomaalinimadii ha dhalato oo soomaalinimadii dib ha loo soo celiyo war shisheeyaha wuuba doonayaa tafaraaruqan sidaana dhexdeena wuu doonayaa hebel baa idiin xukuma hebel iska tuura adeerkiis baa shalay ka ahaa keer ahaa war waxaasi waxba laguma jeedo aqoon-yahanow u baraarug dalkan u istaag meel walbaad ku dhex jirtaa golihii shicibkaa ku jirtaa golihii sharci fulintaad ku jirtaa meel walbaad ku jirtaa oo dugsiyadii jaamacadihii baad joogtaa dalkan u istaago war u baraaruji dadkan inay maaragtay dib u heshiisiin aynu wada samaysano oo dalkeenna aan jiidno aan wada jiidno dusha sare heer sare aan u jiidno halkan aan ku hayno waa halis qarannimadayna ayaa halis ah waxa shidaal aan leenahay waxa macdan aan leenahay beeraha aan leenahay xoolaha aan leenahay kalluunkeenna oo maalin walba la iska gurto ma lagacni la iskaga qaato oo ixsaan lagaga hayno weliba doomaheenna doonta kalluunka doonta la burburiyo shabaagtii laga jarjaro yani dhibaatooyinka socda miyaydan arkayno miyaydan ku baraarugsanayn waxaas waraan baraarugno dad isku duuban cidina waxba kama tari karto cidina waxba kama qaadi karto shisheeyaha usoo hanqaltaagaya dad isku duuban markuu arko waxba ma samayn kariyo ilaa waxa ay doonayaan inuu yeelo mooye isaga ra'yigii u watay wuu bedelayaa oo qasab wuuba ku qasbanya adduunyada qaacida ka dhacda way dunida ka jirta qaacidada ugu weyn ee dunida ka jirta ee dhacda waxay tahay qoom haddii uu cadaalad darro ku sameeyo ummadda uu hogaaminayo wuu rogmaa qoom caad qoom tamuud qoom fircoon qoom shucayb qoom muusa waad ogeedeen dhibaatooyinkii qabsaday fircoon dhibaatooyinkii qabsaday kolkii cadaalad darrada uu ku sameeyey reer bani israa'iil yani ka soo bilow yani boqor barxuu raage ka soo bilow boqor barxuu baraage boqor bucur bacayr geedi baabo boqor heybe boqor fayla aaro boqor nasiib buund yani boqoradaasi kolkeena wax sameeyeen cadaalad darro sameeyeen waa qaacido absolutely ku qoran dunida ee jirta waaba qaacido aan laga bayri karin oo aan laga weecan karin qaacidadaasi ciddii ka weecanta way rogmani un cadaalad darro weeye waxaa looga weecda cadaalad darro haddii aad samaysid waa xukunkaasi wuu rogmay haddaa cadaalad samaysid ilaahay xukunkaas wuu la jiraa wuu soconayaa sare u kacaya aqoon-yahanow baraarug halkaas kusoo koobaynaa barnaamijyadeenna casharadayna way noo socdaan kan waxa weeyaan isbaraarujin aan isku baraarujinayno in dalkeenna ka dhaco waxa la yidhaahdo dib u heshiisiin dhab ah ay ka dhacdo ilaa dib u heshiisiin ka dhacdo tafraaruqa unbaa jiraya federaalka waad aragteen oo waxaa laga dhigay qabiil baa laga dhigay ma qole hebel baa
يعني مقول هبل بقى وتوصل فدرالك معني سبيل ما فاهمين معني لو سمي معنا أنا هنا اللوجو رقم ما أنت هبل نوما إيمان كرم هبل ومتجين إنك واحد لقى حشود وياه aan midowno midnimada wax ka wanaagsan ma jiraan oo mid qora aan noqono waxaan ku noqon karnaa aqoontii waa inay baraarugtaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.